السلام عليكم وأنا سلام أصحابتي إذا قروح بدن نسيتين ما في عندين وإن السلامي ميل كستا joogtid aroor haday ku tahay aroor wanaagsan garab haday ku tahay galay wanaagsan haduu fidee wanaag soo gaaro sii share garay waayada wax wacan waa la sii share garay wax xunna waa laga tagaa fidee haduu soo gaaro sii share garay subscribe kana ha ilaawin hadana soo booqatid aad ba maasatid هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني duco maha waa qur'aan yani aayadahan waxay ku jiraan suuratu xashar bay ku jiraan aayadaha u dambeeya wey mid kamidana mar walba uu akhristaa maxaankeedana maba laga sheekan karo yani aayadan maasha allah way kugu dhegeysan waxaan ku waxaas dhahaysa talow macnaheedu muxuu yahay huwa allahu marka akhrisi laa ilaaha huwa allahu alladii laa ilaaha illaa huwa caalam alqaybi waashahaadatu والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آيضهان وآيض قلبي تابني وهسداس الله يكون معنا يا ربي الرحمن. aayadahan waa aayadaha ugu qiimaha badan ee quraanka. huwa allahu alladii laa ilaaha illaa huwa caalam alqaybi waashahaadatu huwa arraxmaan arraxiim. macnaha isagoo allah ka aanay jirin cid kale oo mudan in la caabudo asaga mooye waa kan og waxa qarsoon ee dadka u muuqan iyo wax muuqda. isagu waa kan naxariista guud iyo naxariista gaar ahaanba iska leh. macnaha aayadan waxay noo sheegaysaa in allah keligii yahay kan mudan in la caabudo isla markaana uu yahay mid og wax kasta oo ka qarsoon makhluuqaadkiisa iyo waxa u muuqdaba labadaba. aayadan maasha allah si wacan ha loogu fiirsado hana laga faa'iideysto. waa aayad aad u cajaa'ib wallahi qalbigaaga marka akhrinay waxaad dhahaysaa qalbiga aad raxmad uga dareemaysid. هو الله الذي لا إله إلا هو مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. معناها isagu waa allah ka aanay jirin cid kale oo mudan in la caabudo asaga mooye waa boqorka xakiimka runta ah waana kan nadiifsan ceeb kasta waa nabadeeyaha ee makhluuqaadkiisa nabad ka helaan waa kan rumeeya ballanqaadkiisa oo aamin ah waa ilaaliyaha iyo maamulaha wax kasta waa guuleystaha laga adkaan karin waa kan xooga weyn ee sareeya waana kan iska leh weynida iyo iskibrida. allah waa ka daahir ka sareeya ay la wadaajinaynaa shirkiga. duluca aayadan waxay xambaarsan tahay sifooyin iyo magacyo aad u waaweyn oo muujinaya boqornimada awoodda iyo hufnaanta allah ee ka fog dulmiga iyo ceeb kasta. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. isagu waa allaha abuuray wax kasta bilaabay kan soo saara abuurka wax yani wax yaroon waxba ahayn waa ka soo saara qaabeeya sawira makhluuqna ka dhiga. isagaa leh magacyada ugu quruxda badan waxaa jira samooyin iyo dhul waaweyn tasbiixdan isaga waana ilaahayna waa loo tasbiixsadaa
waana guuleystaha aan laga adkayn ee aan sida saxda ah xakiimka ah ee wax kasta meeshooda dhiga. Aayadan dambe waxay tirada saaraysaa Allah kan wax walba abuuray, qaabeeyay, xikmad iyo awood kasta iska leh, ayadoo makhluuqaadka oo dhan ay isaga u tasbiixsadaan. Haddaba faa'iidooyinka ay leedahay saddexdan aayadood waxay ka mid yihiin aayadaha ugu fadliga badan ee Qur'aanka, waxaana loo bogaadiyaa in la akhristo subax kasta, galab kasta, qofku ugu dhowaado Allah uguna baryo magacyadiisa quruxda badan leh. Magacyada waa magacyo aad u qurux badan. Haddii aroortii akhristid, galabtiina akhristid, maxayba kaa dhimin waxyaalaha kaleba waan akhrisanaaye. Yacni magacyadan Ilaahay ee aadka u waaweyn iyo Ilaahay sida loo sharxay haddaad akhrisatid maxayba kaa dhibin. Aroortii taa soo kacdid, galabtiina soo kacdid haddaad akhrisatid inaa wax faa'iidid maahan, waxba ma khasaarisid. Marka aayadan akhriso, inta suuratul xashar buu ku jiro aayadaha ugu dambeeya, waana magacyada Ilaahay baa ugu fara badan. aad iyo aadna way ku cajabin doonaan insha Allah. Ilaa markasta waxay rahaa matqaanaa Allah inaga dhow kuwii markay ama duca akhristaan ama Qur'aan akhristaan kuwii Ilaahay munaafic ku siiyo. Yacni waxaadan munaafic ku helin ma fiicna inaa ka shaqeyso Ilaahay munaafic inaga siiyo, kuwii ku anfacana Ilaahay naga dhigo haddaad Qur'aan akhristid iyo haddaad duca akhristid. Haddaba aniga markasta aan meesha soo fadhiisto maxaa igu baratay duco cusub inay noo sido. Ducooyinka lagu dadaalo, waayo ducooyinka haddaad ku dadaashid noloshaada ka mid noqonayaan, waadna akhrisanaysaa xil walbo nolol adag kuu timaada ama wax adag kuu yimaadaan ama waxyaalaha qaar aa u baahan tahay ducooyinka la isku kabaa. Ducooyinka haddaan isku kabina dee waxba ma noqonayso soo maaha. Sideedaba markaa aragtid maalintay kurba kugu furan tahay ama maaragtay xaalado ay ka haystaan ducooyinka lagu cararaa soo ma ogid. Haddaad ducooyinka ku cararto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan inaad faa'iidid ama waxyaalo badan oo maaragtay fahansaneyn inaad fahantid si aad ducada u akhrisanaysid. Xitaa waxyaalaha qaarkood ee ducadaaba ku fahansiinaysa kor kuu dhisaysa. Ducooyinku wallaahi waa dhismaha guriga lama dhihi jirin, waa dhismaha nolosha weeye iyaguna. Haddaba ducadan akhriso markaad kurbeysan tahay oo kurba ku saaran tahay. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dhibka iyo kurbada akhrista ducadan. waxaadna tidhaahaa laa ilaaha ila allahu cadiimul xakiim, laa ilaaha ila allahu rabbul carshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabbu samaawaati wa rabbul ardi wa rabbul carshi alkariim. ducadan wallaahi waa ducada ugu fadliga badan, waayo waxaa ku garanaysaa bal haddii ay kurba ku hayso meel fadhiiso oo ku celi kabacdina waxaa arkaysaa kurbadaada iyadoo khafiiftay, wixii aa ku kurbeysneedna ayagoo kaa dulqaadmay oo khafiif noqday baa arkaysaa. haddaba ku celi waxaa tiraa laa ilaaha ila allahu cadiimul xakiim, laa ilaaha ila allahu rabbul carshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabbi samaawaati wa rabbi alardi wa rabbi alcarshi alkariim, laa ilaaha ila allahu cadiimul xaliim, laa ilaaha ila allahu rabbul carshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabbi samaawaati wa rabbi alardi wa rabbi alcarshi alkariim. يعني معناها ay leedahay wallaahi ma koobi karno, laakiin xoogaa yar baa inooga macneynaya. macnaheeda waxaa weeye Allah kale oo la caabudo ma jiro, Ilaahay weynka ah mooye ee dulqaadka badan mooye. Allah kale ma jiro oo la caabudo ma jiro, Rabbiga carshiga weyn leh mooye. Allah kale ma jiro oo la caabudo ma jiro, Rabbiga samooyinka, Rabbiga dhulka iyo Rabbiga carshiga sharafta leh mooye. ducadan ku celi hadday kurba ku hayso oo markaa rabtid inaad duco intaad kurbeysantahay Ilaahay uu kaa dulqaadana waxaa sameysaa waa inaad ogaatid
inaa marka hore qalbigaagu saafi uu yahay, adigu aad diyaarsan tahay, ama aad weyse qabtid, ama haddaad doonto salaad aad soo tukatid. Waa inaa marka hore diyaar tahay oo qalbiyan diyaar u tahay. Badanaa sheekhada waaweyn waxay dhahaan qalbigoo jooga Ilaahay bari bay dhahaan, soo ma? Qalbigaaga waa inuu nadiif ahaadaa, waxba ku jirin, meel fadhiisatid oo iska weyse qabtid, ducadaada iskaga celceshitid, astakfaartaada gacanta iskaga haysid. Ilaahay baa kaa dulqaadaya wixii markaa jira ama kugu adag ama dhib kugu haya. Ilaahay baa markaas kaa dulqaadaya oo ku xifdinaya oo shaygii ku ilowsiinaya. Ilaahay baaba u timibe, ma Ilaahay baa wax ka waayeysa. Haddaa Ilaahay u timid, Ilaahay waxba ka waayi mayso, wax kasta waa ka helaysaa. Waxaa bini'aadanka soo weedo oo dhan Ilaahay hoostiisa yaalaan. Ducooyinka waxaa loo sameeyay bini'aadamkana Ilaahay xasuustaan, soo maaha. Laakiin bini'aadamkana Ilaahay xasuustaan ma rabaan. Waxay rabaan waxyaalo kale inay ku mashquulaan marka oo xilliga dhibaatada ay jirto, oo la is mashquuliyo, oo wax kale la isku mashquuliyo, waxaan jirin la isku mashquuliyo, ama muusig ha ahaado, ama inaad dhibaatadaada qof uga sheekeysid. Hebelow kaalay, kana maanta igu dhacay, kana ahayd, kaasi ahayd. Hebelow kaalay intaa leedahay, waxaa jira Allah weyn oo hebelkaa u yeerata xataa kasii weyn baa jira, oo kuu diyaara xilli kasta u timaadid. Haddaad habeen u timaadid, haddaad maalin u timaadid, haddaad casar u timaadid, adoo kurbeesan leh haddaad timaadid, Ilaahayna wuu kaa feedaya. Waayo Ilaahay weyna jecel yahay. Addoon uusan Ilaahay jecelin maba jiraba. Waxay ku kala duwan tahay sida Allah loogu kala xidhmo, ku kala duwan tahay sida Allah ugu xidhmatid unbay ku kala duwan tahay. Haddaad mid iska caajisloolo aad tahay, ama Ilaahay baa daddaneynayn, isna Ilaahay ma isaga addoonkiisa waxa la yidhi markaa u soo dhawaatid hal taako, Ilaahayna laba taako kugu dhawaada, soo ma ahayn? In yar haddaa Ilaahay u soo dhawaatay in ka badan, intaa u soo dhawaatay in ka badan buu isagana kuu soo dhawaanaya. Sidaasaa la dhahaa. Marka intaa bini'aadan ka dhigan lahayd first one, bini'aadanka dad ka dhigan lahayd, qofkaasaa qalbigayga ku qaaliya, qofkaasaa waxaas u sheeganaya, qofkaasaa waxaa isiinaya, intaa ka dhigi lahayd. Haddaa ka waran Ilaahay ka dhigatid, Ilaahay baa isiinaya, Ilaahay baa iga dulqaadaya, Ilaahay baa tala saaranaya, Ilaahay baa kun fayakuun. Marka war haddaa kelmadaha ku celisid, ka war haddaa aroorta ka soo bilowdid, galabta ku geysid, kurbeesan tahay, oo haddana tukatid, haddii kurbadaada xoog badan tahay oo dhibaato badan tahay, tukashada ku dartid, ka waran xataa ka dareemi